anigu markaa waxaan aaminsanahay in diiwaangelinta xisbiyada suu sharcigu dhigaya loo maro doorashada madaxtooyada la qabto inaan doorashada madaxtooyada kordhis niimo iyo extension inaan la sameyn oo doorashadina la qabto tii urada la qabto labaduba waa xaq dastuuri iyo dadka reer Soomaaliland ay leeyihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال وحى مدوين كانوا دنبي كتاجنا جمهورية سوماليلاند خلاف عاكران أو أدحيي حزبية دا قرن كي سوماليلاند كاس أو سلكا كهيي دورشوين كمدحتوية دا يولي بفرشة دا وردا سياسة دا هذا بقى ورئيس جارة أو أنا كجهد للدونو وحيابا حضنته وخلاف كان يسيد اللوحة لينكرو وحى مرتين وأه برنامج كان أنا كوريسان دونا دكتور محمد فارح حرسي أو أقويهن شهادة أوصل رئيسية PhD دكتور هايستا لنا عقونتا شروع دا مشرعية يو حلنت خلافاتك محمد وا أجاسمها أكاديمية نوضي يهور مرنتا محمد وحى معلمه ودنبي أد أتاجنا خلاف عكران أو إلا يمكن أن حلوه هدين خلاف السياسي جاهي سوماليلاند كتاجن محاد لهذا هاي وحضن runtii arrimahan hadda inaguma cusba dalalka inta badan duqumaraadigeena waliba dalalka Afrikaanka ay la kaca kufaya nidaamkan duqumaraadiga oo hadda nidaam aan ku salaysnayn qaab dhismeedkeeda nololeed iyo qaab dhismeedkeeda bulshada inta badan khilaafaadka iyo mushkilaadku way jiraan inagana inaguma cusbo horey u soo mar oo haddii aan taariikhda dib u eegno murankii iyo doodihii adkaa iyo arrimihii mudaharaadyada ee ka dhici jiray doorashadii madaxtooyada ee 2010 ee kulmiye madaxweyne Siraayi markii dambe lagu doortay xisbigii markaa jiray oo dib loo dhan jiray iyo kulmiyeenta badan u dhaxeeyay waad arkaysaa duruufaha qalabsan ee waqtiga aynu soo marnay laakiin si duruufaha wax laga bartay oo saldhig u ahaa in markastaba Soomaaliland ay xal u helaysay mushkilaadkeeda xal u helista muranka doorashadana laba wadiiqun baa loo maraa wadamada kale inta badan Afrikaanka uma maraa oo ama Yurub ha noqoto ama wadamada kale Mareykan ha noqoto ama wadamada dimuqraadiyadda ku fogaaday ee qarniyada nidaamka dimuqraadiga isticmaalayay shuruuc iyo nidaam bay leeyihiin oo doodi kama qabsoonto meel doorasho lagu marmayna arkimaysid doorashada dib u dhigisna maqlimaysid xisbiye furisteeda meel lagu marmayna arkimaysid wixii qodob dastuuriya sheegaya ama xeer ba sheegaya xeerkaas la maraya haddii la isku qabsadana maxkamada jooga oo fasiraya go'aanka madaxweynaha waliba fulinay inaga laakiin duruufteen ka duwantay laakiin si hadana markastaba xalbel marka laba wadiiqada marna waxa waa wadiiqada sharciga xeerka dalka iyo dastuurku arinta muxuu ka leeyahay ma ka hadleen muxuu ka yiraahdeen waxa in la qaato lagu dhaqmo siisa loo fuliyo weeyaan ta kalena waxa weeyaan wadiiqada dhaqankiina ku salaysan yahay oo war aynu wada hadalno waa aynu heshiin arrimaha muranka siyaasadda ee doorashooyinka inta badan la taxalluqa aynu wada tashi iyo wada hadal ku dhamayno labadaa waynu soo aragnay waqtiyo sharciga loo adeegsaday iyo waqtiyo maaragtay arrimaha lagu dhameeyay isaafgarad inta badan arrimaha marka isaafgaradka iyo wada hadalka lagu dhameeyana waxa weeyaan waxa dhacda inta badan waa meelaha shuruucda dalku aanay ka hadal haddii laakiin si qodob dastuuri uu oranayo sida waa dadka qodobka dastuuriga in la jabiyo haddii la jabiyo cid jabisay deema maxkamad bay ku mudanaysaa marka inagu runtii waxaan ku soo caanamaalay labada wadiiqaba in lagu dhameeyo khilaafaadkeena haddaba waxay ahayd oo aanu arkaya inaynu ka gaabinay in wadiiqada sharciga ay sareyso oo nidaamkeenan qabiilka ku salaysan ee ay hogaaminayaan danaha shakhsiyadeed markastaba qabiilkii reerihii dad uma ku shaqeystay oo dad gaar oo kooban oo hadhow reerkii waxba u qabinay ee banaanka ka tagay ayaa ku shaqeystay marka nidaamka qabiiliga ee danaha shakhsi hogaaminaya in la yareeyo isticmaalista xalka ku salaysan dhaqankeena oo la badiyo oo la taageero in nidaamka dastuuriga sharciga la maro taas marka hadhow tuli sabab lahayd in khilaafkeenu marka yaraado marka waa in shuruucii la koriyaa qabyadii ku jirtay la dhameystiraa maxkamadihii iyo goolihii baarlamaanka iyo xukuumaddii ay ku wada dhaqmaan cidii jabisana wixii sharcigu dhigayo talaabo laga qaado marka taasaan guud ahaan intaasaan hadda ka bixin lahaa arrinteen haddaan soo noqdo gaarka ah ee imka waqtigan taagan cid kasta way ka hadasho marka
markay cid kastaana arrinkii ka hadasho qofkii wax bartay ee takhasuska u lahaa ee cilmiga u lahaa ee sida dhalinyarta reer Soomaaliland ee waqtiga badan gelisay jaamacadaha iyo duruusaadka ee aqoonta bartay waxa weeyaan dee aqoonta in la ixtiraamo weey ma fahamtay laakiin se marka oday mii jooga oo laa yaqra walaa yakutub waa arrimaha masiiri iyo dastuuriya uu ka hadlayo uu qodobo sharciyo aanu garanayn uu sheegayo waa mushkilad dadkii wax bartay dib bay u istaagayaan waxa oranaya war dib ma kaasad la murmo ilaa saasay noqonaysaa haddana ka fursan mayso in bulshada wax baratay oo maanta aan ku qiyaasayno 8% bulshada wax baratay reer Soomaaliland ee ardayda secondary-da ka baxday iyo kuwa intermediate-ka ka baxay iyo kuwa secondary bahalka maxaa jaamacadaha ku jira iyo kuwa ka baxay aad bay baday bulshadeenu marka waxay u socotaa dhinaca aqoonta ay u socotaa marka waa in la hadlaa bulshadeeni dhinaca aqoonta la socotay oo mar kastaba aan loo ogolaan saaxadii inaan qof aan ehel u ahayn ya oo aan cilmi lahayn in arrinka loo daayo oo isagu la dhageysto marka dadka aqoonyahanka waxaan ku boorinayaa waar waxa weeyaan idinku waan cidna way xanin inaad arrimaha masiiriga ee ummadda la taabto annagu dabcan akaademiyahan arrimaha dhexdhexaad baan kana markastana waxaan taageerinaa wixii nabadgelyada Soomaaliland lagu ilaalinayo dimuqraadiyadda Soomaaliland lagu korinayo ayaan mar kastaba taageerinaa doorashooyinkuna saldhig bay arrintaa waa muhiim bay khilaafaad badan oo dalkan soo mareen akaademigu waxli oo waxa ugu dambeeyay tii 2021 la isku qabsaday ee muranka badan ka taagan labada sano isku haystay barnaamijkii doorashada lagu galay iyo heshiiskii iyo xisbiyadu saxiixeen doorashada lagu galay akaademiga keenay MMTV-na waa tii runtii barnaamijka dhanka sameeyay arrintani waxay ka taagantay markaa laba qodob labada qodob waxa weeyaan doorashada madaxtooyada November oo ku eeg November 13keeda 2020 iyo furista ururada siyaasadda iyaguna labaduba sanadkan bay ku eegeen marka labadaas waxa la isku haystaa keeba ay tahay inuu ka horeeyo halkii doodu ka taagantiina waa halka marka la isku ma hayo inay doorasho guurti la isku ma hayo doorasho kale la isku ma hayo arrimo kale oo siyaasi oo taagan waxa weeyaan doorashada madaxtooyada waqtigaas ay dhacaysa iyo xisbiyada furistooda waqtigaas ay dhacaysa ma yahay xisbiyada hal dib loo dhigo oo madaxtooyada hal galo ma yahay xisbiyada ka soo horeeyay xisbiyada hal furo kadib madaxtooyada hal galo doodu intaas ay ka taagantay marka maxamed maadaama halka imika aad sheegtay xuduntu inay tahay miyaan la oran karin wax dee cad ayaa jiro oo xeerar baa ka yaala ee xeerarka yaala ha lagu kala baxo oo hal raacisay yihiin waa marka adiga laftarkaaga shaqeeysa moogta adiga laftarkaaga yaabay waxa soo saameeyo de arrimahani waa arrimo inta badan sharciya laakiin si buu fiirso inagu arrimaha sharciga oo siyaasadeena kadibna dadkeenan maaragtay reer Soomaaliland ee qof kasta sharciga ma garanay qof kasta sharciga ma akhrin karay qof kasta ma garanayo sharcigu wuxuu u jeedo kadib dadkii baa si kale wax loogu dhigay waxa oranaya hadii kulmiye uu yahay 2010kii si wax u dhigay markuu mucaaradka ah maanta qolada mucaaradka ayaguna si kale wax u dhigay haddana oranaya waxa weeyaan sharcigu saas u dhigay xukuumaddu waxay sameeyay sharcigu saas u dhigay anigu labadoodaba midkoodna looma diran haddii nidaamka dastuuriga ee dalka u yaala la raaciyo ee dastuurka iyo xeerarka ku duugan la raaciyo ee xeerarka dalka u yaala la raaciyo oo aynu heshiis ku nahay in dastuurka iyo xeerarku yihiin waxa ummaddan ay ku heshiisay ay tahay in la fuliyo madaxweynahana uma taalo mucaaradna uma taalo hay'ad baa jirta dastuuriya wada laba hay'ado dastuuriya jira oo midna sharciga sameeyo sharci sameyntu waxay martaa jaranjarooyin baarlamanku waa laba gole golaha wakiilada ay ka bilaabantaa golaha wakiilada markuu ansixiyo xeerkaas golaha guurtiisa u gudbaa golaha guurtiisa markuu ansixiyo madaxweynuhu u gudbaa madaxweynuhu hadduu ku qanco saxiixa kadibna wuxuu noqdaa xeer fula oo dhaqanka ah oo ay tahay in la fuliyo oo madaxweynuhu jabin karin golaba baarlamaan jabin karin haddii xeerkii la ansixiyay su'aal ka timaado hadaba ilaa waxna aayado quraana ma quraanka ilaahay baa ayaa cad oo aan muran iyo dood midnaba gelin laakiin si xeerarka umadu waxay dhigteen de noloshan bini'aadamkiisa isku bedelayso ay xeerarku isku bedelaan oo xeerarku noloshan bini'aadamku baa lagu talagalay inay qaabeeyaan hadda ma fahanteen kadibna cid baa si u qaadanayso waxay qodobka ama dastuuriga ah ama xeerkaasi wuxuu dhigayaa sidaa iyo sidaa kii kale wuxuu oranayaa ma dhigayo haddii marka hay'ad dastuuriga is qabsada hay'ad dastuuri ama xukuumadda ama baarlamaanka ay is qabsadaan ama qof muwaadini
ومعارض وكلي أي دعوة لا يمادان عد بقى وحل صار بعده فرصة عد بقى وحل صار عد وحل صار هو المحكمة الدستورية الجمهورية السومالية أنا كما قرن قرار مدحتويدو يمدحوينه كما قرن قران برنامجكم مفرق جرين كرو قررت دمية على إيميل كيسو جاي سامي شرط يو شغل ويقبضني شغلنا وحيد تعالى محكمة الدستورية محكمة الدستورية أنا حوشن ولا جي ويكهذا الشيء فسرات شرعية بحس قوان بيسوا صارت حدنا قوان كي ولا سودوي بعد أوفرس وحياة عتيب كان كل شيء لابد نعوي سودوي حدنا لابد نعوي سايستا قوان دستوري نمشي وياله يعني مركا حين يعني أرين تاسي أرين ياب لهاي إن محكمة دي وحي حكمتين لسودة دوي وحي محكمة دي حكمتين هذا اللي جمهور رئيسية هذا محكمة وحي عدايس أو وحي معها عربي نكون مقرن إنجليزي نكون مقرن سومالي بيكون قرينو قف كتاو خريك رأيه وحي كتوسي سامركا قضب بينها كفهمين قضب كانوا كفهمين وحويان وأروح على سكوها يا شرعي معها وعلى سكوها يا وطنه أنا سياسي أنا هاسوب نبتيسه ودوني نسوه رئيسيسته مدحوينها wax looga baahan yahay madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka iyo xeerarka dalka iminka doodda madaxweynuhuna taasay ku soo leedahay waxa leeyahay waa xisbiyadu loo fiirso ururadu xisb xeerarku soo dhigayaan 10kii sanaba mar baa la furo wada markii hore watan xisbiyada la xiray ilaa xisbiyada saddex ka koobnaada anigu waxa baan ka soo horjeedaa oo aanu aaminsanahay annaga iyo dhalinyaro fara badan oo reer Soomaaliland oo rag iyo dumarba leh inaan xisbiyada saddex lagu koobin qodobka dastuuriga la bedelo oo xisbiyadu ay noqdaan xisbiyo furan oo qofka kasta muwaadina oo dalkan u dhashay xaq dastuuriya loo xaq siyaasadeed oo shuruucda dalka isagoo maraya waqtigu doono uu furan karayo xisbi hadduu shuruudihii loo dhigay buuxiyana uu xaq u yeeshan doorashada ka qayb galo hadda marka hore in la xiro ayaaba hadda mamnuuc ahayd oo saddexdaas xisbi lagu xiro waana in laga doodo waliba baarlamaankan cusub ee ku dooday ee ku soo baxay وشعبي وأنا صادرت وشعبي وأنا العلن نايا ميديا حبيني مالن إني كستوي ده برلمان كي نقدين ما عرفت هي برلمان إنك كستوي ما أنت هنا هين توب جاي نقهل أنا وهين حتى أنا واحد هاي برلمان كو حير دستور كو حديقة يا إن قدام الدستور قال بدل كرو ولا برلمان كان بدل كرا أما بلشة الرئيس مالن حتى عصر صغر تي بدل كرو لكن سي برلمان كو أكيد بلشة الرئيس مالن برلمان بيتورط حقوق أساسية جاي موادين تايلي هنا قدام كاسي وحنبي إلا بدله waxay ahayd qodobada marka hore in saddex laga dhigo ayaaba xaq dastuuriga asaasiga aniga xaqay iyo xaqa adiga kaaga iyo ka kale muwaadinka reer Soomaaliland ee wax bartay ee dalkan wax ku bartay ee dalkan doonayo maalmaha kamida inay taliis wax ku yeeshaan xanibiye haddaba saddexdii taas mushkilad markii hore saddex ay mushkilad ahayd ayaa wax la leeyahay war seebaan u yar khafiifinaayo 10kii sano mar aynu furno bahladay xisbiyada marka 10kii sano mar baa la yiri marka xisbiyadan liisanka waxay qaateen maanta xisbiyada saddex xisbi maanta jira liisanka ay qaateen fadhi guddiga diiwaangelinta hore ee loo shaqeynaa anagu waxaanu keenay qaab dhismeedkii xisaabeedkii lagu soo saarayay gobolada imika wax la yiri waxa shardi lagu xiray xisbi kasta oo ka hela codad kala tiriyay 20% gobol kasta ayaa xisbi qaran noqonaya 20% gobol kasta oo 6 gobol lama oran gobol kaliya waxa laga yaabaa xisbi inuu gobol ku xoogan yahay oo cod badan u helo laakiin gobolada kale ku dhaco laakiin se kale gobolada kale ka soo baxay uu ka cod badan yahay kan gobol imika mid gobolka Maroodijeex 4% codadka dadka codeeya 4% daraasadaha anagu aan soo saaray Maroodijeex ka codeeya haddaba hadduu xisbi Maroodijeex ka soo baxo ila codkii badnaa halkan buu yaalaa oo cod badan helo laakiin se aanu goboladii kale waxba ku haysan laakiin se goboladii xisbiyadii kale gobolada kale wax ku haystay uu ka cod badan yahay uu ka cod sareeyo uu ka cod badan yahay looma aqoonsanayo xisbi marka 100% marka birga xisaabtii baan soo saarnay loo kala hariyay guddiga diiwaangelinta hore inuu ka caawiyo way mu wata taale de imka hadii la furana loo dhaqan gelinay waxa marka December 2012 bay liisan ka qaatay xeerku wuxuu oranayay marka 10 sano waxay ku eeg tahay liisanku markuu ka dhaco isla qodob xeerka kamid ah ayuu wuxuu oranayaa 6 bilood ka hor ayaa laakiin si ay shaqadu la bilaabaya marka imika xisbiyada mucaaradku waxay eegayaan maalintii uu ka dhacay oo December inta ka horeysa 6 bilood uma tirsana dawladdu waxay leedahay maye si liisanka xisbigu uu qaato adeeg
oo xisbi qaran u noqdo waxaa ka horeysa maxay intaas oo jaran jaro that's why ama waa sababta markaa keentay in loo fasaxo in diiwaangelintu ay 6 bilood imika loo doorasho madaxtooye marka la qabanayo ama doorasho golaha wakiil marka la qabanayo komishanka doorashooyinka wuxuu qabtaa diiwaangelin wada aragtay u diyaar garowga doorashadu waxay naga qaataa 8 bilood u diyaar garowga doorashadu waxay qaataa 8 bilood ugu yaraan diiwaangelin baa la sameeyaa dadku way isdiiwaangeliyaan kaar qaybin baa la sameeyaa way qaybsadaan kaarka dib loogu qaybiyaa intaa markay sameeyaan ayaa haddana campaignkii xisbiyadu bilaabma campaignkii baa la wadaa xisbiyadii baa tartama kadib bay maalinta doorashadu dhacdaa haddaad markaa maalinta doorashadu tiraahdo maanta doorashada oo maalinta doorashadu aad indhahaagu qabtaan laakiinse aanay qaban u diyaargarowga doorashada waxa ka horeeya marka xeerku wuxuu yidhi si loogu diyaargaroobo arrintaas 6 bilood ka hor marka arrinta la isla diidan waxa weeyaan oo inta badan lagu muransan yahayna 6 bilood baa lagu muransan yahay oo xisbiyada mucaaradka waxay leeyihiin December baa anaga liisankay ku eegi qolada dawladdu waxay leedahay hayaha ku ekaade 6 bilood baa ka horeysa u diyaargarowga oo guddigan diiwaangelintu ay ka shaqeynayaan sidii liisanka ciddii xaq u leh ee hadda hesha ay u qaadan lahayd marka 6 biloodna imka ka June bay ka bilaamaysaa marka June waa inay bilaabantaa diiwaangelintii si markaa liisankii loo qaato maye doorashada qabo adiga November bay ka hayeen imka 6 bilood gudaheeda waxa ku dhex jirtay nasmaha madaxweynaha waqtigiisa oo isagana November baa 13keeda madaxweynaha kaga eegtay isagana November 13keeda madaxweynaha kaga eegtay iyaguna waxay leeyihiin maye adigana November bay kaga eegtay de November qabo anigu markaa waxaan aaminsanahay in diiwaangelinta xisbiyada soo sharcigu dhigaya loo maro doorashada madaxtooyada la qabto inaan doorashada madaxtooyada kordhis niimo iyo extension inaan la sameyn oo doorashadina la qabto tii urada la qabto labaduba waa xaq dastuuri oo dadka reer Soomaaliland ay leeyihiin labaduba way dhacaan hadda ma fiirsato oo demo oran kareyno si xisbiyada la wada tii madaxtooyada dib loo riixo taas waa cadaalad darrada wax loo ekaanaysa hadda ma garanaysa qofaan de cadaaladii sugay laakiin sid inagu waxaan raacaynaa way tahay inay madaxdeena raacdo inaguna aynu ku taageero in shuruucda dalkan ay dhigtay la fuliyo doorashada madaxtooyadu waxa weeyaan waa meel hadda anu waa ku arkay xukuumad iyo xisbi iyo madaxtooye leh dib baan u dhignay doorashadii ma arag marka de taana ma oran kareyno koosiga waxa la soo taagin waa doorashada waa qabanayna doorashadii inay qabtaan oo maaragtay arrinta commissionka ka taagan arrin commissionka dhexdooda ka dhalatay weeye marka arrinta commissionka ka taagan commissionka dhexdooda ka dhalatay in sharcigii loo raaco la sharci baa yaallay xeer lamba 23 warda xeerarka maxay u dhigeen haddana fulnay baarlamaankan de cashuurtiina imkaan cashuur baan bixiya intaas oo cashuur baad bixisaa adigu anigu intaas oo cashuur baan bixiya nimankan baarlamaanka facebookida ku jira iyo dawladda kalaba cashuurteeda lagu masruufaayay ay mushaar ku qaataan warda haddaan xeerarka la raacay وحرك الفلوس وبشكلت مركها وين حرك الفلوس وين دور شيء محتاجين إنه قبصنتها سووا في عن حسبية دي أرنتي حسبية ده بمارة موادين تدي حق أولها ويمكن سلامة هدو دوني دين أورفرتهم وليه مفرون كرتي ده مشكلة maxaan farxisay inta badan dawlad ogeedo oo soo muddo khilaafada soo noqonay imikana waatan meel adag la marayo wada hadallo ayaa dhowr jeer u bilowday oo aan wax natiijo ka soo bixin sidee baad isleedahay xukuumadda iyo mucaaradku arrintan taagan ee khilaafka ah waqtiguna doorashooyinkuna ay hoos iska soo galeen way uga wada hadli karaan xal bay u gaari arrintan waxaan aaminsanahay arrintaasi in wada sharci la maro in qawaaniinta dalka u taalo kala baxo in la raaco tafsiirkii uu bixisay maxkamadda dastuuriga saldhigga arrintani waa in lagu dhaqmaa oo la raacaa mana aaminsani madaxweynaha jebin kara iyo xisbiga mucaarada jebin kara iyo golo wakiilad midnaba maxkamadda dastuuriga waxay soo saarto madaxweynuhu xataa dib u eegis kuma samayn karo awood ma awood sharciyadu meel ka soo galaan ma mucaaradkuna meel ay ka soo galaan ma golayaasha guurta iyo wakiilada meel ay ka soo galaan ma warde anigu waxaan ku talin lahaa maalin kasta haddii inta cidda maaragtay kursiga doonaysa ama cidda kursiga ku fadhida haddii mid kursiga difaacaya iyo mid weerar ku ah ay noqoto midkoodna aanu shuruuci dalka aanu ilaalinayn dalkana uu ku fadhiyo shuruuc ku fadhiyo waa mushkilad shuruucda dalkuna dee dana gaara ma ilaaliyaan oo waxaad ka arkaysaa dee qaabka shuruucda loo sameeyo anigu ilama muuqato horta taariikh weyn baan anagu akaademi ahaan u leen xalinta khilaafaadka xisbiyada anigu anoo yar baan bilaabay aan xisbiyada saddexdan ku dhex jiri jiray saddexdooda imika madaxweynaha iyo
labada gudoomiye kale aad ana jeer garan jiray walaah iyagoo duuba gudoomiyaha saddexdan ahaan jiray duruufo badan baan la soo maray doorashadii 2017 doorashadii 2011 doorashadii maaragtay 2010 waqtiga maaragtay ana akademiyada joogay laakiin si odayaashii markaa joogay ay maaragtay ka shaqeyn jireen geesiyo ilaa doorashadii 2005 oo imika qaabka baarlamaanka inuu fadhiyo akademiga keenay labadii saddex kooxna si loo qaybiyay gooda lagu qaybiyay waxay ahayd fikirkii akademiyada tii 2012 lagu heshiina akademiyada keentay markaan waxaan leenahay hada khibrad aad u dheer oo facwi aynu leenahay arrimaha xalinta khilaafaadka ee arrimaha siyaasadda laakiin si mushkilaad badan bay leeyihiin imika aan ka gaabsan uga qayb qaadan weydin waxaan uga qayb qaadan weynay dadkiiba qabiila laga dhigay yar heero marka dad Salmaan heer buu noqonay kadib dad xadiis akhrido maana waxa ka baqayaaba in xataa wadaadadu ay xaysiis iska dhigaysay waayaan oo dhaado in reer hebel baa xadiiska akhriyay marka dadkii waa la qoqobay reeraa laga dhigay maxkamadihii iyo dawladdii iyo baarlamaankii iyo mucaaradkii reeraa laga dhigay oo waxa leeyahay mucaaradku waa reer kaliya madaxweynaha iyo maxkamadda sare waa reer waarde sidaas si aynu dalku dhisi karayno sal maaha walaalayaal maaha waxa weeyaan yaanay danaha gaarka bulshada reer Soomaaliland baa la hadlaya yaanay danaha gaarka waliba dadka dhalinyarta reer Soomaaliland waqtiga badan la geliyay ee wax bartay ee waqtiga badan ku baxay ee waalidintood waqtiga ku baxay waxa weey danaha gaarka ee shakhsiyadeed ee xisbi ama shakhsi leeyahay yaanay nolosheena iyo wada jirkeena iyo dalkeena yaanay saameyn ku yeelan galaafana nimanka tartamaya dumarba kuma jiraan nimanka tartamaya madaxweynaha imka jooga kuwii ka horeeyay kuwa soo socda iyo kuwa madaxweyne doonayaba xaq kaliya dadka ku leeyahay war walaalayaa barnaamij siyaasadeedna ma keenan xataa war walaalayaa barnaamijkan siyaasadeed baan wada waxaan doonayaa noloshiina wax ka bedelo iyo codeey war wixii nagu leeyahay codeyn nooguma laha walaa madaxweynaha fadhiya walaa kuwii ka horeeyay walaa kuwa soo socda in laga yeelana maaha mucaaradka in laga yeelana maaha in waxyaabaha aasaaska iyo saldhigga bulshada reer Soomaaliland oo ah wada jirka midnimada iyo nabadgelyada dalka waa laba taabtaan say Soomaaliland muqaddas u tahay ee laba taabtaan tahay ay arrimahaas laba taabtaan haddii dalku foodo gala xagee la xukumaya ninka wax doonaya xaguu xukumaya inta badan way ogeyn khilaafaadka badan uu soo joogtay inta badan ma muuqato imika hay'adihii dastuuriga ama hay'adihii garansay dawliga wadaan sheegayo oo ixtiraam badan oo loo muujinayo ma jirto inta badan odayaal baa ka shaqeyn jiray in la hal la helo oo isu tanaasulo odayaashii inta badan badankood meesha ka baxeen oo ma jiraan wax imika arintaasi halka raadinaya marka xageebad isleedahay isku iska la taagan yahay waa loo gudbi karaa wallahi waa isku adag way aad u adag khatarteedana leh laakiin si mas'uuliyad cid bay saaranto siyaasiyiinta garoonka ku loolamaya ay saaranta maanta aan la kala baranay ka dadka iyo dadka u turaya iyo ka kursigiisa daneynaya mahmaah caalami ah jirta moogta oo ingiriisiyo nin falsafada ku takhasusay oo buugtiisa aad loo akhriyo ayaa leh waxa la Machiavelli baa Machiavelli qarniyadii hore ayuu raggii wuxuu ahaa siyaasadda boqortooyinka go'aamin jiray hadana hal kuriga caalami soo saaray wuxuu yiri adiga kursigaasi ha ku muuqdo haddii si aad u gaadho kursigaasi ay kumanaan ku dhimanaya ku dib marka hal kuriga waxa dhahdaa the means justify the ends halka u socoto ya wadada maraysa muhiim aha laakiin se waxa muhiim ah halka u socoto marka waxa qiimo macnaheedu waxa weeye halka u socoto wadada maraysa wax kasta ku sii samee laakiin se halka u socoto gaad ujeedada u socoto ah kursiga haddii siyaasiyiinteenu ay danahooda gaar ka ilaashanayaan oo aan danaha mujtamaca ilaalinayn inaga adiga iyo aniga iyo dadka kaleba waxay noo dana nabadgelyo cidna walaa madaxweyne walaa mucaarid ka yeelimayno cid nabadgelyadeena iyo wada jirkeena taabata marka waxaan leeyahay war kursiga nabad ha lagu doono madaxweynaha imka fadhiyaana nabad buu ku yimid nabadna uu kaga tegaya insha Allah ka imanayaana bedelayaana nabad ha ku imaado nabadna ha kaga tago maxamed faarax inta badan waxaad ka dhawaajisay in maxkamaddu tafsiir ka soo saartay arrintii la isku hayay xeer foodin maxkamaddu waxyaalaha soo jeedisay waxa kamid ah in la qabyo tiro oo la sameeyo muxuu ahaayay xeerka qodob kamid ah oo ahaa in ururada doorashada xeerkaas sheegay doorashooyin golo deegaan lagu galo in imika ururada toos loo gelayo marka ma xeerkaas kale in dib u habeen lagu sameeyo oo golayaasha marahayn sidii maxkamaddu amartay un baa loo fulinayay mar baa la isku yar qabtayo waxa jirtay xeer mashruuc sharci oo soo maray golaha oo dhan oo waliba golihii hore baaskireeyo qaabka u dhignaa marka maxkamaddu tiibay faahfaahinisay ka hadlaysay arrinta maanta taagan
wadajir baa lagaga bixi karaya waxaa lagaga bixi karaya iyadoo sharciga la ixtiraamo waxaa lagaga bixi karaya dulqaad iyo tanaasul iyo wadahadal anuu ma aaminsanaya albaabada wadahadalka in la xidho albaabada wadahadalku mar kastaba waa in xukuumaddu furtaa waa in mucaaradkuna furaan cidnayna xidha ma arrimaha kale ee dastuurka ee sharciga ee la isku qabanaya ama kuwii ay maxkamaddu soo saartay ha noqoto ama qaar kale oo maxkamadda looga baahdaba ha noqotee waa in loo maraa maxkamadda dastuuriga oo la yidhahdo war maxkamadda haddaynu wax isku qabsano oo tafsiir sharci tahay maxkamadda dastuuriga waa in tafsiirka sharci bixisaa oo ay maartay maxkamadda dastuuriga marka taana waa in la raacaa laakiinse aynu iska ilaalino walaalayaal aynu ka taxadarno in hay'adihii dowladda maalinba ninka jooga in hay'adaha dowladdu maalinba ninka jooga reerkooda ay noqdaan ugu dambeyntii sii geli doonaa arrintani maxaad isleedahay maxamedow way ku keeni kartaa amniga somalilan khilaaf ka taagan iyo weliba sumcaddii iyo magacii somalilan inta badan lagu ammaani jiray dhinaca doorashooyinka ay ka kasbatay hadda bulsho kastoo meel degan iyo dal kastoo doqomaadii mushkilaadkiisa siyaasadeed waa leey marka wadoma arka tan inay tahay wax somalilan u gaara waxaan u arkaa inay somalilan tahay meesha keliya ee qaaradda afrika ee inta doorashooyin ku dhacaan aanay cidna ku dhiman cidna ku dhaawacmin ee la isku haneeyo ee lagu kala tago ee kadibna doorashooyinkii kale la galo waxaan is leeyahay siyaasiyiinteenu waa ma gaadhayaan halkaa niman uma arkayo mucaaridku waa niman dalka u turaya saan rajaynayo umana arkayo niman maaragtay odhanaya maanta aynu maaragtay wax nabadgelyo darre keenaya laakiinse waxaanan arkaynba shacbi la leeyahay maaragtay shacbi xataa haddii arrintaasi la yimaadaan siyaasiyiinteenu oo midna yidhaahdo mucaaradkuna yidhahdaan noo dagaalama muxaafidkuna yidhahdaan na difaaca labadooda midkoodna shacbigu inay u hiilinayo ma arkayo shacbigu way ka koreen inay dala shaksiyo siyaaseed ay cid maaragtay ugu markaa waxaan la hadlaya shacbiga reer somaliland gaar ahaan dhalinyarta waxa weeyaan barnaamijyada xisbiyadu ay iibinayaan iyo waxqabadkooda ay xisbiyadu iibinayaan hala kala doorto mushkiladuna waa qabyaalada mushkiladda aynu la tacaalaynaa waa qabyaalad ay in yar oo fara ku tirisa isticmaalayso eeg haddii iminka reer meel qabsaday la yidhahdo dowladda reer baa doonayo reer baa qabsaday ama reer baa iminka haysta reerka iminka haysta ama reerka hore usoo haystay ama reerka qabsan doona budgetka yar ee dowladda miyay wada gaadhaan in yar baa laga yaabaa inay xoogaha yar ya weliba aan dowladda iminka jirtana ku badnayn oo aan maaragtay iyo qandaraasiyo iyo nidaam baaba maraysa kuwaasna marka waxa weeyaan madaxtooyada nin baa gelaya iminkana madaxweyne baa ku jira birina madaxweyne kaliin baa gelayo waxa weeye marka dantaadu waxay ku jirtaa ilaalinta nabadgelyada waxay ku jirtaa kobcinta iyo kor u qaadida dimuqraadiyadda iyo xaqa kaliya ee nagu leeyahay waxa weeye in ciddii soo taagta ee tiraahday walaal doorta ee barnaamijkaas la timaada aynu kala doorano dambeyntii maxamed faarax xirsi waxaad tahay aqoonyaha bartay sharciga iyo xalinta khilaafaadka maxaad is leedahay 2 qodob 3 qodob oo xal noqon karaya oo arrintan imika taageeraysa marwaaga ah xal ay noqon kartaa soo jeedinaysa waxaan aaminsanahay wadada maaha waxaan aaminsanahay fikirkayga kuma cabiri karayo arrintadan mana aaminsanin fikir qof lagu saleeyo laakiinse waxaan leeyahay go'aankii maxkamadda dastuuriga ay soo saartay hal fuliyo habka kaliya ee arrintaa waliba waxaan kugu daraya saleeba mucaaradii maxaafid bay soo dhaweeyay way qaateen warda waysta maxaa damishkadu tahay soodinkii go'aankii maxkamadda dastuuriga ahaa soo ma yaalo haa soo meedu qaadan haa soo mid kasta muu soo dhaweyn haa kaasuna hal fuliyo wixii ku qornaana dee laatiini kuma qornaa farta adduunka waxa ku daran waxa faraha aan la fahmin farta laatiiniga kamid markaa haddii lagu farta laatiini ay ku qoran tahay macnaheedu waxa weeye lama fahmi karo warda shuruucdeedu farta laatiini kuma qornaa waxay ku qoran tahay af Soomaali aad iyo aad u mahadsan yahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax Xirsi agaasimaha akademiga nabadda iyo horumarinta ee Somaliland oo waraysigan khaaska ah ee kaga hadlaynay khilaafka waqtigan waddanka ka taagan iyo xalka sida loo heli karo noogu martiha aad ayuu mahadsan yahay